horseed ardayda fasalka sideedaad mar kale iyo casharaanteennii taxanaha ahaa ee inooga baxay dugsiyada horseed maanta waxa weeyaan waa 4tii bishii shanaad 2020 haddii la yiraahdo waxaynu eegaynaa xisaabteennii fasalka sideedaad ee trigonometry-ga ahayd oo aynu halkii ka sii wadno haddii la yiraahdo ay trigonometry-ga tusaalihiisii labaad baynu bilaabaynaa marka aragtida Pythagoras laga yimaado intii saamiyada trigonometry-ga aynu tusaalihii labaad eegaynaa haddii la yiraahdo marka halkan waxa laynagu yiri raadi saamiyada trigonometry-ga haddii ay xagashu tahay 45 theta haday ku mid tahay 45 degree ama 45 degree soo inagu taa ka duulayna waxaan leenahay aynu soo saarno sin halkii theta marka waxa ku mid tahay 45 sin 45 degree aynu soo saarno waxaanu kala soo saareynaa cos 45 degree waxaan kala soo saareynaa tan 45 degree intaas aynu raadinaynaa si haddaba intaan soo saarno waxaynu xasuusanahay inuu wada xifdisanahay gacanteennii aynu maxaan raahdaa ku soo saari jirnay saamiyada trigonometry-ga marka waxaynu lahayn sidan baynu u sawirnayd gacanteenu marka sidaas nooca ahayd waxaynu nidhi soolku waxa weeyaan 0 degree baynu mar walba u qaadanaynay ka ku xigana waxaynu u qaadanaynay 30 degree ta ku xigtana 45 degree ta ku xigtana 60 degree ta ku sii xigtana 90 degree u dhamaysa shanteeni farataas ay hayeen marka xagga waxa ka iman jiray qiimayaasha cos theta ama coska xaga shota xaggana waxa ka iman jiray qiimayaasha sin theta theta-duna waxa gashi inta markaynu helay waxaanu lahayn waxa sin-ka lagu soo saaraya egas xididka ku jirta ama xididka ku jirta oo loo qaybiyo 2 coskana xididka ku jirta oo loo qaybiyo 2 taankana waxa lagu soo saarayay sin-ka oo loo qaybiyay 45 ka hadba xagashad haysato oo loo qaybiyay cos 45 marka isagu labadan wixii ka soo baxay ku xidhan yahay marka haddaba way sin 45 si aan u soo saaro sin 45 si aan u soo saaro sin-ku farta ay ku qoran tahay 45 ku waa tan marka sin-ku xaggaas ku iman jiray imisa farood ba farta aan hayo ee 45 ku qoran imisa farood ba ka hooseeya laba farood ba ka hooseeya soo waxaan ku bedelayaa halkaa labaan ku bedelayaa xadi baa macnaha laba ah weeyaan marka labaan ku bedelayaa waxaan u qaybinayaa labo marka maxay ku mid tahay labada xididku kama baxdo halkana laba ku taala marka waxay ku mid tahay intaas sanki saas ku soo baxaya cos 45 isagana saa u soo saarto waxaad leedahay 45 waa kan imisa farood baa xaggaas cosku ka iman jiray 45 ku qoran yahay imisa farood baa xagan ka xiga waxa ka xiga xabada iyo xabadaas ka xigta soo iyadana laba ka xigta marka halka egas talabaan ku bedelayaa oo loo qaybiyay labo hay coskina wuxuu soo baxay 45 waa radical 2 divided by 2 ama laba xidid ku jirto loo qaybiyo 2 kana waa la mid labadoodu waa isla mid sababta ay qiimayaashu isla mid noqdeen waxa weeyaan xagasha coska uu wato 45 iyo xagasha sin-ku wato 45 hadii labada 45 la isu geeyo waxay soo baxayaan 90 xaglahana isu geeyntoodu haday 90 soo baxdo waxa weeyaan waa qiimayaal isku mid ah saamiyada trigonometry-ga waxa u jeedaa hadii ay 90 soo baxdo xaglaha ay saamiyada trigonometry-ga wataan hadii 90 degree soo baxday isu geeyntoodu ay labadu kala wataan waxay soo baxaan qiimo isku mid ah xagan kale marka loo eegayo way taasi waa taas ku dhamaatay aynu su'aasheena labaad eegno su'aasheena labaad wuxuu ku yiri hadii nin injineerihi uu doonayo inuu taago birta dheer ee taarka oo dhererkeedu yahay 150 mitir bay kor u taagan tahay uu doonayona in uu dhulka ugu xidho xadhko si xagasha kacsan ee dhulka ka kacsan ee xadhkuhuna ay u noqoto 30 degree xadhko intee dherer leeg ayuu doonay u baahan yahay inuu ku xidho taarka balaan eegno aynu halanka eegno wuxuu leeynagu yiri horta aynu halanka ku qorano furfuris xaggaas ay inoo soo keen raacdo waxa la inagu yiri dhulkii waa kan dhulkii markuu kaas yahay ninkani wuxuu ka taagay halka taar bir dheer buu ka taagay halka
halkaas bir dheer ka taagan dhulka iyo birta dheer waxa isla sameeyaan 90 degree bay isla sameeyaan hay birti dheer waa ta kor taagan dhulkana waa kan birta dheer wuxuu leeynigu yiri waxa dheerkeedu yahay 150 mitir ba dheerkeedu yahay laakiin birta dheer si ay u taagnaato ninku wuxuu doonayaa xarig dheer inuu ku xidho halka ka kaxeeyo barta ku soo xidho xarigaas doonaya inuu isticmaalo kaasi markaa waa xarig weeyaan dhulkina waa kan bawaayahay wuxuu inagu yiri oo kale xagasha kacsani waa 30 degree buu inagu yiri xagasha kacsani dhulka ka kacsane tan ahina waa 30 degree inta aynu isticmaalayna waxa xarko xarig intee dheer leeg buu isticmaalaya xariga dheerkiisu waa imisa hadda saaw eegto saddex xagalkan waa saddex xagal guman dhinaca ka soo horjeeda xagasha waxaynu oran jirnay waa horjeedi dhinaca laynoo diray xariga dheerkiisuna waa dhinacii shakaalka ee aynu siida ula bixi jirnay bal waayahay saamiyadii trigonometriga ee sin theta iyo cos theta iyo tan theta saddexda keeba lagu heli jiray iminka dhinacii deriska waxba uga baahnin laynoomana dirin laynamana weydiin laakiin waxa layna siiyay horjeedihii xagasha oo xagashu waa talka ku qoran 150 iyo waxa layna siiyay dhinacii la oran jiray shakaalka oo xariga loo bixiyo leeyahay waa dheerka xariga waayahay saddexdan keeba lagu heli jiray horjeedaha oo loo qaybiyo shakaalka kan waxa lagu heli jiray c divided by b kan waxa lagu heli jiray c divided by a kan waxa lagu heli jiray b divided by a horjeedaha waxaynu bixinay b shakaalkina waa kan haye aan siida sarreysiyo afwan b divided by c iyo a divided by c marka horjeedihii waa kan shakaalkina waa kan horjeedaha oo loo qaybiyo shakaalka waxa lagu heli jiray sin marka sin imka tiitadina halka tiitadu ay taalana waxa inoo yaalaa in ku bedelanaa 30 degree sin 30 wuxuu ku la mid yahay shaka horjeedaha oo 150 mitir oo loo qaybiyo shakaalko c ah taasaynu isticmaalayna tan waxa uu qarsoon hal talantaal isugu dhufo sida iyo sin 30 isku dhufo waa c sin 30 ama c sin 30 halka iyo isku dhufo 150 waa 150 mitir inta markaynu helo c oo lagu dhuftay aynu qaws yar saa u furno halkan 150 ka caadigiisa iska soo dhigo iska soo digo sin 30 imisu kuula mid yahay sin 30 waa kan sin 30 markaad raadinayso waxaad leedahay 30 waa kan sinku xagan buu ka iman jiray imisa farood baa ka hooseeya hal faro kaliya ta ka hooseysa halkii xaada marka hal baan ku bedelaya oo loo qaybiyo laba sin 30 marka wuxuu kuula mid ahaa hal loo qaybiyay laba ama waxaad oran kartaa hal loo qaybiyay laba waa 0.5 hay waxa kuula mid tahay 150 mitir haddaad siid iyo 0.5 isku dhufato waa 0.5c halkan waxa ku yaala 150 mitir si aad siida u soo saarto dhinac walba waxaad u qaybisaa 0.5 iyo 0.5 labadaas ay isla baxaan siida oo shakaalkii oo u taagan xariga dheerkiisu waxa ku la mid tahay 150 loo qaybiyo 0.5 150 mitirku hay dambeeya labadan haddaad lagu yiraahdo isu qaybi waxaad tiraahdaa to hoose ka saar dhibicda hay dhibicda imisa tira ka dambaysa hal tiro xagana 10 ku dhufo xagana 10 ku dhufo siidu marka waxa ku la mid tahay xaga sare 150 hadda 10 ku dhufato waa 1500 labada hadda isku dhufatana 5 kaliya ta soo haraysa soo hadda labada isu qaybso 5 iyo 10 iyo 5 isu qayb waa 3 labada siroona inoo soo kaxee mitirka aynu meesha xaga sare kaga nimidna inoo soo saar soo xarigu muxuu ku la mid yahay wuxuu ku la mid yahay 300 oo mitir ayuu xarigu noqonayaa marka xariga shakaalka wuxuu noqonayaa 300 oo mitir saasaad kaga shaqeynaysaa hadii la yiraahdo su'aalaha noocaas ah casharkeenuna waa casharkaas aad wada arkaysaan marka hadii la yiraahdo casharka ku xigay inta isugu iman doono waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horseed schools